dalku maanta annaguu noo baahan haddaan ku hadlayno 30 sano siyaasiyiintii nabad dhali waaye 30 sano bal u fiirso ma kula tahay dalkan haddii mashruuc aan lagu soo qaadan 30 sano ayaa nabad la'aan dad dhan oo macnaha ilaahay caqli siiye oo maskax siiye oo isku luqad ku hadlaya oo isku af ku hadlaya 30 sano oo nabad la'aana oo xabaddu dhacayso oo dhiiggu daadanayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhawaada ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad meel dheer gaarsiisaan maadaama uu yahay muuqaal faa'iido u ah dhallinyarada soomaaliyeed bal marka hore waxaad ila daawataan muuqaalkan murugada leh dhocsaday habaar culus kala dhoorka saxaaraha Ethiopia ma jirin inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahi subxaana wa tacaala ha u naxariisto dhallinyarada soomaaliyeed ee kulligood geeriyooday runtii waxaan ugu dhacday haddii aan nahay dhallinyarada soomaaliyeed rag iyo dumarba nasiib darro weyn taasoo ah dalkeennii iyo dadkeenniiba inay noqdeen looma ooyaan maxaa yeelay markaan annagu siyaasiyiin ku soo xulannay qabiil ee niri noogu shaqeeya waxaa dhacday inuu baaba'o qarankii soomaaliyeed waxaan noqonnay duul aad u ayaan dara maanta adigoo 30 sano jira ama dhashay burburkii dowladnimadii wixii ka dambeeyey waxaa aad iyo aad kuugu ceeb ah inaad siyaasi ku taageerto qabiil waayo sababtan waxa waaye waxaad dhalatay ayadoo xabadu dhacayso ayadoo dalku burbursan yahay weligaa dowladnimo indhaha ma aada saarin waxaan ogahay dhallinyarada soomaaliyeed ee baaba'day hal nin oo siyaasi xitaa inuusan ka hadlin taasuna waa nasiib darro aad u weyn runtii waxaan dhihi lahaa soomaaliyay tooso haddii la dhihi jiray dhallinyaroy toos dalkiinnaa inii baahan ma ahan dalkaaga inaad ka baxdo ma ahan dalkaaga inaad dhibaatooyinka iyo duruufta oo la dhacayo aad uga tagto dalkaaga adigu markaad ka baxdo waxaa soo gelaya shisheeye adigoo qaxootiya ayuuna kugu maamuli doonaa sida maanta taaganba maanta dalkeenna waxaa ka taagan qaar badan inay ku joogaan sifo sharci darro ah shisheeyo ma jiro siyaasi ka danqada iyo dhallinyaro soomaaliyeed oo inta badan ka hadasho ka daqaata dalkeennu annaga ayuu noo baahan yahay waxaa la joogaa wakhtigii annagu dalkeenna iyo dadkeenna aan u shaqay lahayn waxaa la joogaa wakhtigii dhibaatadana daashatay aan ka bixi lahayn waxaa la joogaa wakhtigii dhallinyarada soomaaliyeed gacmaha ay isqabsa lahaayeen dalkoodan u adeegi lahaayeen maanta ma ahan inaad tahriibto lacagta aad ku tahriibaydo ee hooyada ku dhashay ama aabbaha ku dhalay aad ku dhibayso shaqa abuur bay leedahay $1,000 had iyo ka badan baad ku tahriibtaan maanta dalka gudihiisa shaqa abuur bay ka leedahay ma ahayn inaad tahriibtaan laakiin geeridaan la hurayn maanta waxaan dhihi karaa runaantii waa laba geeri inaad ku baaba'daan badaha afrika waayo waxay laba geeri ku tahay marka koowaad dalkaaga iyo dadkaaguba ayagoo kuu baahan ayaad ka tagtay marka labaadna waxaad noqonaysaa dhinto aan la tebin oo wax taariikha aan reebin haba yaraatee dhallinyaroy waxaan idinka codsanayaa inaadna ku baabi'in badaha inaad maskaxda aad tuujisaan inaad dalkiinna u soo jeesataan inaad hagaajisaan dalku maanta annaguu noo baahan haddaan ku hadlayno 30 sano siyaasiyiintii nabad dhali waaye 30 sano bal u fiirso ma kula tahay dalkan haddii mashruuc aan lagu soo qaadan 30 sano ayaa nabad la'aan dad dhan oo macnaha ilaahay caqli siiye oo maskax siiye oo isku luqad ku hadlaya oo isku af ku hadlaya 30 sano oo nabad la'aana oo xabaddu dhacayso oo dhiiggu daadanayo maskaxdu ha shaqeeyo dalku idinku inii baahan uma baahna siyaasi danley ah
uma baahna siyaasi calooshii u shaqaysta ah. Dalku wuxuu u baahan yahay qof damiir leh, ka fikiraya caalamku iyo dunida waa naga tagtay, annagoo eegaynay naga tagtay. Heer hebel iyo qabiil iyo jufo aan isku qabyaaladayna. Dalkeennii iyo dadkeennii waxaa boobaya cadow shisheeye ah, annagoon dareemin weliba. Maanta haddaad ka hadasho ood hal qof tiraahdo inta soo qaato siyaasiyiinta maanta haddaad hal siyaasi aad tiraahdo waxaas baad ku hadasha, qabiilkiisaad is arkaysaa, waayo ayagaaba ka soo horeeya. Taasuna dhibaatada ugu weyn waxa waaye waxaa keenaya qabyaaladda. Dhallinyaroy, warkayga waxaan ku soo koobayaa ha ku baabi'inina badaha, dalkiina inii baahan, maskaxda tuujiya. Waad mahadsantihiin. Dhallinyarada badda gashana waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay samata bixiyo kana badbaadiyo inta hartay. Waa mahadsantihiin.